هيا دغه هيناد الحيستاغا مقدشيو هرقيس على ضها وضا دوغا صوهو بهي الداوس لاقوه مسال هديري دادو مدايد ويميلتين وان ويرو ميكروفون كان aan ku soo dhaweeyo saacadkuna waa xaqiisa gudoomiyaha ahna madaxa warbaahinta Soomaaliyeed ee dalkan Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg Ahmed Nuur Ibrahim oo loo yaqaano Ahmed Somali waa mahadsan tahay Cabdirashiid Cali rashka intihiin mudanayaal marwooyin ku soo dhawaada munaasabada tan aan ugu talagalnay dhiirigelinta jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Hamburg saad la socotaan magaalada tan Hamburg waxa ku nool Soomaali fara badan dawladda Jarmalka gaar ahaan gobolkan aanu degannahay marka uu tirkoobayo Soomaalida ku nool Hamburg ma yiraahdo Soomaalida Hamburg ee wuxuu yiraahdaa caadiyan Soomaalida ku nool Hamburg iyo nawaaxigeeda marka annagana inteenaas waxaan wakiilo u nahay ama aan matalayna intaan halka fadhido Soomaalida ku nool magaalada Hamburg iyo nawaaxigeeda ujeedada kulankan ama munaasabadan waxa weeye sidii aan u dhiirigelin lahayn bulshada Soomaalida ee ku nool halkan sidii aan u heli lahayn xaqeena markaan idin leeyahay xaqeena xaq badan baa naga maqan annagu haddaan jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Hamburg xaqaas naga maqan qof walba waa dareemi karaa dadi waxay xaq helaan markay isku xiran yihiin dadi waxa la ixtiraamaa markay isku xiran yihiin dadi waxay kalsooni ay ku keeni karaan markay isku xiran yihiin ama ay kasban karaan ummadaha kale ee la nool yihiin saada socotaan annagu ma nihin dad isku xiran waxa way waa kala qaybsannahay tanna waa tii ugu horeysay oo aan ku midoobi lahayn inteenaas maanta halka joogta waxaanu ka simannahay hal fikirkaas oo ah inaan hore u soconno oo aan hormarino dhanka isdhexgalka oo aan hormarino isfahamka dhaxdeena hayesha marka waxaan jeclaan lahaa Faadimo Muuse Afrax oo ah madaxa hay'adda United Action inaan ku soo dhaweeyo Faadimo fadlan assalaamu alaykum malaji fa maxamed bariiskii caloosha fadhiista algo haay erstes Mal ich möchte sehr sehr bedanken meine liebe Kerstin wenn wir hatte gefragt dir bitte helfen uns das war du hat gesagt bin ich hier möchte helfen gerne und das war so toll وأنا أمهد علينا كاستن إيو أحمد وذجر und أحمد وويل سوماليات أنا جم جرنين مرهرة صدق بالله هذا كل دواد وأنا سنقانا وويل كل أنا جم مثل ما مكره وحتى ما مكرت هوش وقبتي ما كم هاد علين كرنا سومالي ذو حيد هذا البدن هان مبوحيه لكن تصال لك قروح بدن إن لا أركو والله رنتي أنيجا هدان إذن كهلا أنيجا شخصيا فرحت وين هرمر وين جعيل وين من نمو وين كلسوني وين صومالي نمو وين أي إيتا إلى كل جن اسكتي مادان أذنكو عرورة هوانا رجعة وحول بسكوده والله هي قالقة وحل دونيو أو برنامج كان لو سميه وحيته سيدا ليسكو كتوما qof kasta oo Soomaaliya Hamburg iyo dalkanba ku nool hadii la yiraahdo Soomaali ha walaaloodo hana isku timaado gacmahana ay qabsato xuquuqdeena qaxootinimo ee Jarmalku inuu siiyay sida aynu uga raadsan lahayn aynu falankeeda galno hadda qof diidaya inuu jiro ilama ah fariintan hadda qof kasta oo Soomaaliya Jarmalka ku nool oo dhan bay waxa weeye muhiim u tahay reer Hamburg kaliya xataa muhiim ma aha isku duubnaanta iyo wax wada doonashada sida aynu ognahay walaalkeen Ahmed iyo Faaduma ba ay noo sheegeen jaaliyadaha ee ka dhisan Jarmalka kan way badan yihiin jaaliyado badan baa ka dhisan oo aan Jarmal ahayn oo wadanka banaankiisa ka yimid kuwa qaxootiya iyo kuwa aan ahaynba wadanka kaliya ee wadankan qaxooti iskaga soo dhiibay oo aniga ogaalkay aan maqlay waa Soomaalida la yiri hadii qof
uu ku dhinta halkan jarmalka oo kale waxa weeye waxaa aada nooga saacida masaajidada aasidiisaan ka wadaa masaajidada ay leeyihiin nimanka turkida oo kale baa idinkaga saacida maadaama aysan jirin jaaliyad soomaaliyeed oo isku duuban oo qofkaas soomaaliga ayoo dhintay sidii duugtiisii diin ahaaneed iyo mid dhaqan ahaydba ay u fulin lahayd waxaan kaloo anigu intaan jarmalka joogay waxyaabihii ila yaabka badnaa aan maqlay waxa ahayd shacab soomaali dad soomaaliyeed oo jarmalkan ku dhintay oo qabuurihii islaamka aan lagu aasin oo qabuurayaal kale lagu aasay qaar waxaaba la ii sheegay meeshii lagu aasay dadkoodii wayba garan waayeen ehelkoodii ku kala noolaa ee meelaha kale ee Yurubta ka mid ah waxaas dhibaatadaas aad arkaysaan waxa keenaya waa jaaliyad la'aan iyo isku duubnaan la'aan Soomaaliduna sideeda ahaanba sidii Abaaye Faaduma ay noo sheegtayba waa dad isjecel beet dadkuna hadday isjecel yihiin haddee oo si Ilaahay nagu ogaal isku jecel yahay dhibaatada inta leeg inaan kuma dhacdeen inaynu afka kaliya ka niraana ma ahan inaynu isku duubni ku sameeyno way waxaan halkaa magaaladeedii uga imid 50 kilomitir bay halkan u jirtaa markaan maqlay Soomaali baa shiraysa Hamburg joogta aniga aad bay ii farxad gelisay oo waan jeclahay inaan tago meel Soomaali ay ku hadlayso ka waxaan barnaamijkayga ku gabagabeynayaa ay gabadhii hadda Faadumo oo walaashino Berlin inoo kaga timid Ilaahay khayr ha siiyo gabar wanaagsan weeye arrimo ay ka hadasheen anigu runtii aad baan ugu riyaaqay sidii isku duubnida loo heli lahaa bay safarka dheer soo gashay haddana sida ay sheegtay waa sii wadayaabay tiri marka idinka reer Hamburg rag iyo dumarba inaa isku tagtaan waxa la rabaa warbal aynu danaheena waxaynu xaq u leenahay iyo waxaynu u lahayn iyo wax wanaagsan oo wadada wanaagsan aynu ku qaadi karno aynu intaan suuga nimaano aynu ula tagno meesha dawlad baa ka jirtay kullu lagu hungooyay wax badan waa laga helayaa barnaamijkiina hadda intaasaan anigu iskugu soo talagalay Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello, welcome here in Hamburg and welcome at Pro Familia. Bitte näher, okay. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind heute und ich freue mich, dass Pro Familia so das erste Treffen von der somalischen Community in Hamburg unterstützen kann. Hallo, assalamu alaikum. Waxaan inta macnaha waa ku faraxsanahay maanta maalinka ugu horeeyo macnaha Soomaalida kulanka ugu horeeyo Soomaalida marka inaad soo wada qayb gashaan. Genau, wir können euch den Raum hier zur Verfügung stellen und das war auch alles super gut organisiert von Fatuma und von Ahmed. Wir sind echt sehr begeistert und beeindruckt, wie toll ihr das alles gemacht habt. sidoo kale macnaha meeshaan oo kale position aan haysano marka waxay tiri macnaha waxaan u mahad celinayaa Ahmed iyo kale intii isku hawshaan aad bay u mahadsan yihiin. Pro Familia ist eine Beratungsstelle hier in Hamburg, kümmert sich um Familien und um Anliegen. Wir teilen kurz unseren Flyer, aber in allererster Linie seid ihr hier willkommen zu sein und eure Community zu gründen. Okay, macnaha hay-adan macnaha waxay qaabilsan tahay waxay saacidaa macnaha familka iyo carruurta waxyaabo noocaas saacidaa marka waxay tiri macnaha maadaama dadka macnaha aad sameysanaysay ururka marka waa kusoo dhawaada macnaha si kale laab. Okay, vielen Dank, einen schönen Abend. Okay, waa mahadsantihiin sidoo kale. waxaan markaan oo aan jeclahay labo saddex eray wuxuu halkan ka jeedin lahaa uu soo jeediyo saaxiibkay siyaad waxa uu ka mid yahay dhalinyarada farakutiriska ah Soomaalidu ay ku Bismillahir Rahmanir Rahim horta marka hore aad baan idin salaamayaa Assalaamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh marka hore waxa Ilaahay maxad iskale Ilaahay halkan suugan keenay halkan suugan kulisiyay dhamaanteenba marka labaadna waxaan mahad gaar u jeedinayaa walaalkeen Ahmed Soomaali iyo gabadha walaasheen Faadumo waxa halkan fariin uga diraya dhamaan horta dadkeena degan Hamburg iyo dhamaadka kale gobolada kale Jarmalka degan fariintaan dirayaana kullay hadalka Sakariya walaalkii baa dhameeyay fariintaan diraya waxa weeye kaliya horta waxa weeye isku duubni meel kasta joogtaba Soomaalidu inay isku duubnaato inaga horta dhibaato gaar ah haysta gaar ahaan reer Hamburg anu hadda muddo waxaan deganahay Hamburg
4 sano ku dhow 4 sano inaan deganaya halkan iminka muddo 3 jeer iyo 2 jeer baa jahliyada la soo hadal qaaday in bal la dhaqdhaqaaqo oo la sameeyo waxa kaliya ay ka dhaqaaqi weeyday waxa weeye dhibaatada Soomaaliya ku habsatay ilaa iminka wadankeena haysata dhibaatana kulli waa isla garan karnaa dhibaatadaasina waa qabyaalad weeji maanta halkan reerka doonta ahaw gobolka doonta ka soo jeed waxaan ka midaysanahay kaliya waxa weeye dadka wadankii jooga siyaasadda iyo hirtanka ku jira maanta inagu waxaan iskaga xignaa intaas oo dhan waxa weeji dad meel ku wada nool baynu nahay maanta abdi hadday dhibaato ku dhacdo ama nuuro dhibaato ku dhacdo dhibaatadaasi ma saameynayso dadkii wadankii degan inaga ayayna saameynaysaa inaan dhibta dareeno dhibaatooyin badan baa jira oo halkan Hamburg imika ka dhacay hadda waxay ugu maqaalaan muddo 2 bilood laga joogo inuu wiil gaari jiray Allah raxmaan raxiimine cid ka hadashay iyo isaga una saxsanaa gaariga jira oo qalad ka lahaa marka waxa weeye dhibaatooyin badan oo soo noqday way jiraan dhibaatooyinkana waxa laga bixi karaa kulli waxa weeji isku duubni iyo inaan dad noqono macnaha meel ka soo wada jeeda oo meel loogu hagaagale meel loogu yimaadale laakiin waxa weeye inagu hadda sababta aan ugu suganahay waxa weeye si madooba iyo si cadaya si casay libaax midba maalin cunay haddaynu saa isku fiirsano oo saa si ahaano kulleen waxa filayaa inaanay jiri doonin wax wanaagsan inaan la kulmi doonin hadda xataa waxay ugu maqaalaan maalin dhaweyd oo maqlayay dad ajaanib ah oo Hamburg naguna nool inay xafiis ku furteen magaca Soomaali ay xafiis ku furteen oo ay ku adeegtaan magaca Soomaali inaguna waynu hurina war ma hayno nin walba reer hebel iyo ayuu ka sheekeynaya marka waxa weeye hadda aniga muhiimadeyda fariintan diray waxa weeji saaxiibkay Axmed walaalkay hadda meel baa isku arday baan meel baa wax ka wadigan jir barnaamijkan isagaana waa uu sheekay waan ku dhiirigeli way fiican tahay baan ku leeyahay halka ka wad waxa weeji muhiimadu hadda aan ka hadlayaa in aynu maanta dhiirigelinta walaalkeen inoo la yimiday ay isagana gabadha walaasheen ay dhiirigelisay inaynu bartan kaga tagin intaynu sharaabno cuno aynana halkan ka bixinayno qolkan kaga tagin hadalkii imika ay soo jeediyeen intii meesha ka hadlaysayba ay noqoto mid aynu dhaxalgal ka dhigano aynu bilow ilaa dhamaad aynu wadno walaalkeen la garab taagno inaguna aynu garab istaagno oo aynu xaqiijino danta aan meesha u joogno ilmaheena iyo inaguba sida aan maalin walba aan meesha hadda aynu ku kulmayna waa meel kulli wada dareemi kartaa بريكا مال واحد عايز إنا إنه مال أنا سكومنا إنه وإنه عقول إنه هاي وعلينا هاي وأنا عندنا ككريسانين وأنا عندنا بريين هب الفراي نوي دي كوميونتي مال واحد عليه مكان مسكين كتركيا كتركيا أنا ويدي سنو كوكولانو هذا أنا أرني لنا إن كستونا نسكور هاي مدة وصدق هم مال أي كل شيء كيسان أنا وحنا لو تشوفين كشيء كينيان marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaynu garanno aynu xaqiijino maanta halkan waxa aynu isugu imanay inta halkan joogtay inta naga maqana ay la socdaan aynu xaqiijino go'aanka iyo mowduuca halkan aan kaga hadlayno in aynu xaqiijino oo ka rumayno insha Allah Ilaahay inuu nala garab qabto wallan qaadana inaan xaqiijino halkan inta joogtay inta naga maqanba jaaliyad sida aynu u samaysan lahayn oo nin walba uu soo diyaar garoobo insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay walaalkeen Axmed Soomaali sida uu dhiirigelinta loogu sameeyay walaashay Faadmo iyagana jazaa'u kallaa dargu mahad celinaya inaguna aynu qaadano ayna halka ka wadno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana bariisku kana baarlini wino qudaartan ala soo adeega maanan arkin haween hadlaysan rak haweenka bar Hamburg ma dhimateen iswa nooshiin haweenka Hamburg ma nooshiin iswa dhimateen waay maxay tahay hadee sidaan hal ma ahane ragga way qurux badanta inay hadlaan laakiin nin meel ma gaara naag la'aydad ma la mis haween la'aydad naag era fiican ma la igu dhahay haween la'aydad aniga waxaan dhihi lahaa Axmed aawe Axmed kaale waxaan ka codsanayaa in aad kartidaada istaajinin Soomaalida sidoo aboow sheegay jaaliyada ma aragtay masaajidkaas aasaysi waa mas'uuliyad kale culus oo ma aragtay horta Soomaalida maxay iskugu diidaa qofka Jarmalka ama ku shaqeynaya lacag ku shaqeeya bilaash kuma shaqeeyo way ad Soomaaliga ugu diidaan qofkaas oo shilin ku qaadanayn ayaa loo malayn inuu lacag ku kor xabsanayo lacagna kuuma kor xabsanayo
qofka hay'adii bulsho markuu hogaaminaa waa shaqo abo adinkana dadka u dadaala insha allah u dedejiya midda kale sameeya network community isku sameeya